eedaysani xukun dooli dabay dafaay magaciisa afgarashadu tahay daf mirq ina dooliya duur goomey ku dhashay muqdisho da'diisuna ay tahay 26 jir kadib markii maxkamaddu ay eegtay xeerka ciqaabta dooliyada Soomaaliyeed faqradiisa qodobkiisa 116 faqradiisa C eedaysanuhu waxa uu qirtay inuu cunay 4 dirac oo baati ah iyo inuu xaday $10 oo doolarka Mareykanka ah waxa sidoo kale eedaysanuhu uu afkiisa ka qirtay inuu asiga iyo tiimkiisa ay weerar baahalnimo ah ay ku qaadeen laba habeen oo isku xigto laba dhalinyaro ah oo deganaa qol irid banaana sidoo darteed waxa u suurta gashay dhalinyaradii iska caabin kulul oo ay kala kulmeen inay eedaysanaha ay gacanta ku soo dhigaan sidoo kale eedaysanuhu waxa uu qirtay inuu si bareer ah u jaray fiiladii gaaska oo wax lagu karsan jiray xaafadda sidoo kale eedaysanuhu waxyaabaha uu qirtay waxa kamid ahay oo la yaab kale heeday in uu xaday aag $3 laga soo baxshay oo ka xaday dibane Sahro Cusmaan sidoo kale eedaysanaha waxa uu sheegay inuu dhibka uu ku hayo xaafadda marka laga reebo oo dhibaatooyin aad u far badan oo u geysto dadka deriska ah taasi oo ku sii qirtay inuu xaday dadka qaar qumaca masaasada sidaas daraadeed waxa maxkamadda sharafta leh ee xeerka ciqaabta dooliyada Soomaaliyeed laga codsanayaa inay ku qaado ciqaabta u qalantay dambiga uu geystay maxkamadiina halkaas ay inoogu xiran tahay waa dil rabaa laakiin maanta badar macaan cun mujida hilibkayga xataa waa sii walaa markoo walaalka low oo bartaa kaasa dooliyo oo bii ka qoray